shir jiraa'id ay ku qabteen qaar ka mid ah odayaasha cuqaasha haweenka ku dhaqan magaalada Garbadadar ayaa waxa ay hambalyo iyo bogaadin u direen madaxweyne Muuse Bixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici iyagoona eebba uga baryay inuu u fududeeyo hogaamida xukuumadda cusub ay soo dhisi doonaan iyagoona kula dardaarmay inay aasaan qabyaalada hareysay ummadda reer Somaliland waa beesha mamaasan ee degan degmada Garbadadar iyo nawaaxiideeda waxaan leenahay oon ku celcelinaynaa oo mar labaad iyo mar saddexaad baleenahay madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenkaba hambalyo xilkaad maanta qaadeen waa xil culus Allah inii fudaydiyo kuwii dalkooga iyo diintooda iyo dadkooga baan anfaca Allah inaga dhigo ku kastoo mucaarada iyo ku maxaafida dhammaantoodba maanta waxaa tihiin madaxweynahoogii iyo madaxweyne ku-xigeenkoogii waa bulshadiini cidna waxa weeye waa mucaarad bay ahayd loo abaal marin maayo anigoo ku hadlay afkii duqeyda beesha mamaasan ee degan Garbadadar iyo deegaankeyga xilkaad qaadeen Allah inii fudaydiyo waxaan leeyahay hambalyo bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ku hadlaya magacayga gaarka iyo magaca dhalinyarta degmada Garbadadar waxaan hambaliyay tiiraanyo aan u dirayaa dhammaan ummadda iyo shacbiga Soomaaliland waxaan kaloon si gaar ah taniyad ugu dirayaa madaxweynaha cusub Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici waxaan u soo taagnay muddo 2 bilood ah taageerida iyo ololihii dheera aan u soo galay si uu guuleysto xisbiga kulmiye insha Allah alxamdulillah waan ku guuleysanay ingiriisku wuxuu yiraahdaa we get what we deserve not what we desire waxaan mutaysan oo hela waxa jabna Soomaali dadaalkii Ilaahay nagu hoojinin waan ku guuleysanay maantana waxaanu leenahay hambalyo waxaan hambalyeynaa madaxweynaha cusub wadane Muuse Bixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Saylici waxaan u diraynaa hambalyo hadal waa xumin iyo xamaama la yiri waxaan leenahay madaxweynaha Muuse Bixi Cabdi Cabdiraxmaan inna anaku إلهي الرحمن كاكاهي سنينا وحوي ما توا همبليو سود وادان لنا مدحدا abtihiin iyo mas'uuliyada qaadeen Allah inoo shaqeeyo ummadda tan iyo intii lagu dhawaaqay madaxweynaha cusub Muuse Bixi Cabdi iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici ayaa waxa ay hambalyo iyo duco iskugu jirto u dirayeen dadka ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Nisalal waa Cali Axmed Diiriye wararka Ariel TV magaalada Saylac